banaanbaxan oo ay ka qayb galeen dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa uu ka dhacay meelo kala duwan oo ka mid ah magaalada Muqdisho iyadoo banaanbaxayaashuna ay wateen boorar ay ku qoran yihiin erayo ka turjumayay doonista dadka Soomaaliyeed ee ku aadan in la joojiyo gabi ahaanba faragelinta caadada noqotay ee lagu hayo had iyo goor sida ay banaanbaxayaashu qabeen arrimaha dalkan Soomaaliya banaanbaxayaashan oo ay ka muuqatay carax xoogan ayaa sidoo kale waxay gubeen taayaro iyagoo joojiyayna isu socodkii gawaarida dadka rayidka ay isticmaalayeen ee u kala gooshayay wadooyinka magaalada Muqdisho iyagoo xirayna wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya dadka banaanbaxayay oo isirtaab ku sameeyay gawaarida isticmaalaysay wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada iyagoo waliba wata dhagxaan iyo ulo ayaa waxay ku guuleysteen inay saacado door hakiyaan gaadiidkii ku kala soconayay wadooyinka ka kala yimaada ceelgaab sayidka iyo waliba wadada xawataako ee soo martay SYL waxayse banaanbaxayaashu taageerayeen oo ay waliba u sacabtumayeen kolka ay soo maraan wadooyinkaasi gaadiidka ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa xoogga dalka iyo booliiska oo aad moodo iyaga laftooda inay banaanbaxayaashu qayb ka ahaayeen maadaama ay u muujinayeen ciidamadu taageero dadweynihii banaanbaxayay qaar ka mid ah dadkii caraysnaa ee maanta banaanbaxayay shucuurtoodana muujinayay oo ay ku jiraan kuwa curyamo ah oo dul saarnaa baaskiilo ayaanu la kulanay kuwaas oo aanu weydiinay bal waxa ay doonayaan iyo waxa ay diidan yihiin dibadda lagu soo lacagta la siisay Soomaalida la kala gaday oo wax walba ee qaranka in lagu dumiyo la rabo ayaa diidana ma ogoli hadana dadweynaha Soomaaliya hadana ciidamada Soomaaliya hadana waxa rabnaa nabad waxa lama wayna nabad Soomaaliya wixii Soomaali nabad ka dhaliyaa taageertana anagu ma taageersanina نفتينا مالك يا كوي قلت أنا كنا واحد حتى أنا ناوح كصوبة ولا بحنا بدنا كنا واحد حتى أنا واحد ديار واحد إن صوماليا نبتش إنت وين صوماليا نبتش العرور تأيه يويك واحد ما يسلك له نبت واحد كصوبة جالس الشديد يحرف جدا أوت من الدولين من الدولين gudoomiyaha majmaca culmadiinka Soomaaliyeed Sheekh Axmed Cabdi Daciso oo kamid ah dadkii banaanbaxan ka hadlay ayaa isagu waxa uu qabaa inay Soomaaliya ku dhacday nasiib darro mar haddii aan la garoosanayn lana ogolayn rabitaanka shacabka Soomaaliyeed